السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا يوتيوب channel oo aan uga hadli doono daafurkii Windows 11 oo 24 June 2021 soo baxday oo shirkadda Windows ay ku dhawaaqday iyadoo tilmaantay in ay rabto in ay maadaama heshiisyo ay la gashay shirkado kale sida shirkadda Amazon ay go'aansatay in ay qaasatan dukaamada ugu dhex yaala Windows ka qaasatan waxa la yiraahdo Windows App Store-ka iyo in laga heli karo waxyaabo kale oo muhiim ah ayaa Windows-kan waxa la isweydiinayaa shirkadda Microsoft soo saartay Windows 11ka muxuu kaga gedisan yahay Windows 10ka muxuu soo kordhin doonaa muxuu noqon doonaa bilowgii dhamaadka shirkadda ama halkii looga yaaci lahaa ayuu noqon doonaa arrimahaas ayaan uga hadlaynaa stay tuned. Marka Windows 11ka daafurkeeda sida hadda uga jeedaan isha aan ka soo xignay waa microsoft.com. Windows 11kan 24 June sidaan idin sheegay ayay shirkaddu ay ku dhawaaqday ee daafurtay sidaas daraadeed dadka way u furan tahay ay leeyihiin oo dadka laysanka u haysto waxay siinayaan free upgrade oo bilaash ah iyo update-yadii ku saabsanaa. Marka waxaa noogu xigo marka marxaladii ama timeline-kii ay soo martay Windows-ka marka laga bilaabo sanadkii 1985 ilaa 2015 oo Windows 10ka hadda jira la isticmaalayay waxaa ka dambeeyay intaan kaleeto Windows-yada ay ka mid yihiin Windows 3.1 95 Windows XP oo ahayd Windows-yada ugu fiicnaa intaan aniga saan ka helay Windows Vista ayaa jirtay Windows 7 ayaa jirtay Windows 8 marka halkaas hadda ugu gudbino waa marxaladii ay soo martay operating system-ka shirkadda Microsoft. Waxaa noogu xigo oo isweydiin leh maxay tahay requirement ama shuruudaha Windows 11ka ay u baahan tahay sida ay sheegeen sida aan ka soo xignay shirkadda Microsoft ee milkiilaha sameeyay waxa ay sheegayaan in aad u baahan tahay processor-ka compatible oo ah ama u dhigma 64 bit processor ah ama 8664 oo ama ARM 64 sida halkaan u jeedana at least 1 GHz ah clock rate-ka laga hadlayo ama speed-keeda at least 2 core memory-gana waxa waaye ugu yaraan 4 gig storage-ka ama qarada loo isticmaalayna waa 64 gig system firmware-kana waa UEFI sida u jeedaan UEFI security-ga marka waa halka la isku haysta waxa inuu ahaado waa secure boot enabled by default inuu lahaado secure boot waxaa taas ku xigto wax la yiraahdo trusted platform module ama TPM version 2.0 oo ah halka la isku haysto oo ay abuuri doonto dhibaatooyin weyn in ka imaan doontaan graphic card-ka dhammaan waa u jeedaan akhrista wax dhibaato male intan waa inta loogu talagalay kombiyuutarada marka laga reebo TPM-ka kombiyuutarada caadiga oo dhan intan way heli karaan oo wax dhibaato ah kama imaan karto laakiin halka ay dhibka ka soo socoto waxay noqonaysaa trusted platform module-ka ama TPM-ka sidaan arki doono oo aadna ogaan doontaan in ay danta ku kalifi doonto dad badan in ay kombiyuutarada either ama iska dhaafaan ama Windows-kooda duqa ay isticmaalaan ama ay xal ka raadsadaan ama alternative ay ka raadsadaan ay noqon doontaa TPM-ka. Marka su'aashaan markaan ku bilaabaa waxay noqon doontaa tii shirkaddan u keentay dhibaatada sidii shirkadda Nokia ku dhacday oo kaleeto oo mar awood isbaday marka tan waxay noqon doontaa ma sidaas bay noqon doontaa ayaan leenahay. Marka halkan haddaan kaga gudubno waxaa isweydiin la Windows versus Linux. Haddii aad la socotaan Windows waa operating system muhiim ah oo adduunka ka jira oo saamayn weyn adduunku haysto waxaa kaloo isagana muhiim oo Linux ah oo jiro oo nin la yiraahdo Linus Torvalds uu sameeyay oo muhiim ah marka waxay noqon doontaa fursadii ay dadku uga yaaci doonaan dhinaca Linux way adkaan doontaa laakiin way fududahay marka dhinaca kale laga fiiriyo qaasatan Linux mintiga marka la isticmaalo Linux-ka marka distros ayuu leeyahay distrosyada ama distributionada sagaalka ugu muhiimsan waa kuwan anigu hadda waxaan aad uga isticmaalaa Ubuntu ay dadka yaqaanaan ama Linux Mint waa mid alternative oo loo isticmaali karo qofka Windows-ka isticmaalo oo u bartay iyo Manjaro oo kaleeto oo mid lixaad ah tan Linux-ka dib baan uga soo noqon doonaa waxaa noogu xigo sideen ku ogaan karaa in computerka
computerkaaga lagu xiri karo Windows 11 sidee ku ogaan kartaa waa dadka ku hadla afka Soomaaliga ayaan usoo bandhigaynaa marka waxaad ku ogaan kartaa adigoo raaca qaacidadan tag open setting update security Windows security device sidaa ujeeda intaas raacayna laakiin hadda waxaan sameynaynaa iyadoo tusaale ah ayaan sameynaynaa waxaad tegaysaa startiga waxaad tegaysaa settingka markaad shaashadan baa kuu soo boodaysa shaashadan markay kuu soo boorto waxaad tegaysaa update security ayaad ku dhufanaysaa update security markaad ku dhufato Windows security ayaad tegaysaa Windows security markaad tagto waxaad tegaysaa device security ayaad tegaysaa device security marka aad tagto waxaa kuu soo baxaya device security-gaaga comes built into your device core isolation saa ujeedaan security your security processor called the trusted platform module TPM is providing additional encryption wixii in ay farti ama qoraaladii ay qariyaan your device sidaa ujeedaan computerkayga standard hardware security not supported ayaa leh laakiin computerkan waa computer sidaa la socotaan 4 gig RAM ah ayaa la yiri ugu yaraan ama 64 gig oo ah hard disk ama qarada ah sidaa ujeedaan intaan aad ujeedaan security aad tagtay markaa aad tagto waxaan halkaan aad ka arki kartaa in halkaan ay tahay carqalada ugu weyn ay imaan karto shirkadan oo ay wajihi doonto waxayna dadku ku kalifi doontaa si ay u helaan TPM-ka ama Trusted Platform Module-kan 2.0-ga ah dad badan ma haystaan in ay laba mid noqon doonto in ay iska haystaan computerkooda hore iska jiraan inay xal raadsadaan ama inay iska daayaan asaga oo dhan marka tan waxay tahay waa mid cusub oo dadka xoolahooda lagu dhacayo systemkana waa system su'aalo badan ay ka mudan yihiin oo xagga encryptionka ama datadaada ama xogaha ku gaarka shakhsiyan lagu xadgudbi karo maadaama hadda shirkadaha waaweyn ama big giantska sida Microsoft iyo Apple ay ka faa'iideystaan datada ama xogaha dadka ama ay noqoto gold mine maashaas ay ka timid aad wax ka qaban kartaan aysan jirin awoodeedna aad u badato marka aan u soo noqdo diracda sheekada oo hada standard hardware security not supported sida u jeedaan computerkan marka waxaan tusaa computerkan inuu yahay one of the latest hadda inta aan ogahay waxaan tagaynaa start again halkaas ayaan waxaan ku dhufanaynaa qaybta yar shaashada yar PC ayaan ku dhufanaynaa waxaan noo soo baxay computerkii halkaas buu noo yaalaa right mouse click baan ku dhufanay property baan tagnay property-ga markaan tagno waxaan u jeednaa computerkan inuu yahay i7 saa halkaas uga jeedaan 2.4 GHz oo processorkiisa 16 gigna inuu leeyahay oo memory ama RAM Windows 10 ay ku jirto Pro saa u jeedaan marka computerkan waa computer 64 bitna ah system type-kiisa marka awood leh oo wanaagsan hadee waxaan u maleynayaa dad badan in ay ku kalifi doonto marka sida halkaan uga jeedaan waxaad halkaan ka arki kartaan in not supported ay noqotay waxaa kaloo ka fiirin kartaa markaad dib u noqoto aad tagto qaybta home-ka ah ayaa waxaad tegi kartaa sidiisaba mar labaad aan kusoo noqdo startiga ayaad tegaysaa settingka marka aad tagto qofka waxaa u furan inuu update-ka security-ga inta tago uu fiiriyo Windows Insider Program Windows Insider Program sidaa ujeedaan suurtagal iimaha waxay iigu soo qoreen far casaana ayaa laygu soo qoray you need to turn on optionalka diagnostic data anigu waan ka xirtay nimankan odayaasha waana isaga baxay marka suurtagal iima aha sidaa ujeedaan halkaana waxay abuuri doontaa carqalad weyn su-aalahaas weydiintana waxay tahay ninka la yidhahdo Microsoft ee dhaqaalaha badan haysta ee faro badan ay ku godan yihiin maanta ma dhici kartaa in xogahaaga gaarka ah loo dhiibto dadku soo ka warqabaan in ay xogahooda xaq u leeyihiin ee aanan lagu xadgudbin not to use and abuse it marka arrimahaas waa arrin muhiim oo qof walba oo shakhsi ah inuu ka fakaro u baahan tahay marka laga hadlayo wadanna waxaa loo baahan yahay wadan kasta xogihiisa u gaarka ah ma ku aamini karaa shakhsi maalqabeen ah oo wadan kale iyo geographical location kale degan anigu su-aasha aan jawaabteedu waa maya marka halkan waxaan idinkugu soo gudbiyey sidaa ujeedaan maaragtay Windows 11ka iyo carqaladaha uu keeni doono waxaa dhici karta in aan su'aalo iyo jawaabo inta aad qabtaan waxaa igala soo xiriiri kartaan ama nagu soo biiro oo naga mid noqda oo subscribe ka qayb qaata si aad channelkan u taageertaan info@ilays.com ama website-ka oo aan hadda ku wadno
koorasyo ku baxo IT-da oo muhiim u ah bulshada oo kaa caawinayo sidaad si fudud aad maaragtay shaqo ugu heli lahayd ama adigoon 4 sano ama 6 sano ama 7 sano aysan kaaga bixin jaamacada iyo iskuulla noocaas oo kaleeta ah si fudud aad ku heli karto oo lagu diyaariyo. marka haddeedan markaan dib ugu soo noqdo waxaan mar labaad isku dayi doonaa in aan raadino xal kombiyuutarada caadiga ah ee mataqaanaa in la geliyo Windows 11 ayaan isku dayi doonaa annaga oo system kala mari doono. waxaan isku dayi doonaa